السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان باخيرتا هودا naga daawanaysa barnaamijka aan idinka diyaariyay fursad boqoliyo 60 Somaliland xornimada ka qaadatay mustacmarkii Ingiriiska. Barnaamijka waxay la socodsiin doonaa Haniba Yunus Cabdiraxmaan. 1960 June waxay Jamhuuriyadda Somaliland xornimada ka qaadatay gumeystii Ingiriiska oo soo degay 1884 kaasi oo kasoo degay xeebaha magaalada Berbera. Wixii intaasi ka dambeeyay 4 maalmood kadib waxay Jamhuuriyadda Somaliland ku biirtay wixii la isku oran jiray Soomaaliya ama goboladii koonfureed iyagoo la qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shubani ko nabada dhaliye qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shubani ko nabada dhaliye halka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay qaateen gobolada koonfureed baarlamaanka intooda badan ay qaateen isla gobolada koonfureed taasi oo gobolada waqooyi ama Jamhuuriyadda Somaliland ay waqtigaas Ingiriisku u gumaysan jiray ee xornimada la siiyay tiro yar oo aan ku filayn. 1961 waxaa dhacay isku day inqilaabkaasi oo fashilmay. wixii intaasi ka dambeeyay markii loo codeeyay dastuurka dawladda Soomaaliya 1961 taasi oo bulshada Somaliland boqolkiiba 79 ay diideen iyagoo ka soo horjeestay dastuurkaasi kaasi oo qeexaya midnimada Soomaaliya. waxa khubarada siyaasadda ay ku tilmaamaan in aanu heshiiskaasi ama midowgaasi aanu ahayn midow si sharci ah u dhaqan galay. haddaba wixii intaasi ka dambeeyay Somaliland waxay gashay geediga iyo hayaan dheer sidii ay ula soo noqon lahayd xornimadeedii luntay. dagaalada lagu hortay iyo dibadbaxyooyin soo gaaray shacabka reer Somaliland. 1991 waxay Somaliland si toos ah ula soo noqotay xornimadeedii halowday taasi oo 18 May isla sanadkaasi laga dhawaaqay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. bishamay xuskeedii weeyaane bishamay xuskeedii weeyaane ودرار حرني مقارن هويالي ودرار حرني مقارن هويالي انت لو حبال قلي هويالي انت لو حبال قلي هويالي لغو هلي حنجر قوبتي لغو هلي وياني لغو هلي حنجر قوبتي لغو هلي وياني. intaasi ka dambeeyay Somaliland waxay qaadatay hanaanka dawladnimo ee dimuqraadiyadda Kurdistan taasi oo ka kooban 3 dhaqaar oo kala fulin iyo sharci dejin iyo sidoo kale garsoorka madax bannaan labada dhinacba kaasi oo midba ka kale ku ilaalinayo waajibaadka iyo hawlaha uu qabanayo. 26 June oo ku beegnayd habeennimadii xalay ahayd waxaa qasriga Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa ka dhacay xaflad si heer sare loo soo agaasimay kaasi oo ka soo qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi badiba golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland taliyayaasha ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale marti sharafaad u tiro badan iyo xubnaha ka socda gobolada Geeska Afrika dadka ku kala nool sida dawladaha Djibouti iyo Itoobiya. waxaa halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ugu horeyn ka hadlay maraaxilka ay Somaliland soo martay iyo sidoo kale markii ay 27 June baarlamaankii Somaliland wixii lagu heshin lahaa ama qodobadii la isku afgaran lahaa. أسيكون وهذا تاريخ أيلنا هاي اللي وتجدون وهاي محمدي إنجليزا ولحية لما تكون قاوتي حرية الله
كنا مايو أو ياشي تقول لك شيء لكن لا بقول تطبيق أواتك كي تكون سيار بقول كي برلمان كي سبعة لندن وغاي محاولة سوتش دي شروط أنا بقرأه سوماليا وأمريكا حريق هذا هاي غير أسعد هو hambalyeeyay shacabka jamhuuriyadda Somaliland isagoo ku hambalyeeyay munaasabada 58 guurada ka soo wareegtay markii ay Somaliland xornimadeeda ka qaadatay dawladda Ingiriiska. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan shacabka jamhuuriyadda Somaliland gudaheeda meel ay joogaanba iyo dunida dacaladeeda kuwa ku fadhisan waxaan ku hambalyeelayaa sanad guurada boqortooyada ee ka soo wareegtay markii Somaliland ay xornimadeeda ka qaadatay boqortooyadii Ingiriiska. qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shubadhi koo nabadda dhaliye qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shubadhi koo nabadda dhaliye qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shubadhi koo nabadda dhaliye qaranka dhidibada dad baa u dhigo u shubadhi koo nabadda dhaliye sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu shacabka Somaliland ugu bishaareeyay inaanay wax qaldani ka soo bixi doonin shir maalmahani ka socday buurta gacan libaaxkaasi oo qaar ka mid ah beelaha dega Somaliland ay ku qabsadeen halkaasi isagoo madaxweyne Muuse sheegay inay shirkaasi ka soo bixi doonaan oo kaliya qodobo kor u qaadaya jiritaanka iyo qarannimada Somaliland. shirka ka socda gacan libaax waxaa ummadda u sheegayaa inuu ku soo gabagaboobi doono dhawaan haddii aan la idhaahdo waxay Somaliland ku faraxdo. waxaan idiin sheegayaa shirkaa ma joogo ajadiisana wax kama qayb gelin laakiin kor waa iga wada dhigno ummadda halkaas isu tagtay ummad Somaliland weli jecel badan cidda loona jecel badan cidna lama halgan badnay cidna mustaqbalkooda kama jecla guurteeyo 500 qolooyinka loo shaqeeya sidaa wajed waxaan waa inay ka soo bixi doonaan Somaliland waxay ku farxdo oo ah midnimada Somaliland waa muqadas qarannimada Somaliland waa muqadas beelaha Somaliland nabadda ku noolaanaya dawladda ha wada ahaado wixii la kala cabanaya halaga wada hadlo. kala madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arintaasi ka hadlay samalahaantaasina ka qayb galay xafladda soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Muqdisho ee dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay in Somaliland ay ahayd dawlad iskeed isku taagtay isla mar ahaantaasina ay bilowday mid isku keenida midnimada Soomaaliyeed 1960 markii ay xornimada ka qaadatay gumeystihii Ingiriiska oo ka bilowday gobolada waqooyi oo aan ognahay inay yihiin dad wadaniyiin ah oo mar walba aan ogolaanaynin in la gumaysto ama gumaysi aan ogolayn maxaa yeelay guushaas waxay ka bilaabatay 1960 markii waqooyi iyo koonfur ay isku darsoontay madaxweyne Farmaajo waxa uu hoosta ka xariiqay in Somaliland tahay dawlad jirta halka ay badiba dafirayaan xukuumaddiisa qaybo fara badan oo kamid ah iyo maamul goboleedyada ku hareeraysan oo ay kamid yihiin maamul goboleedka Puntland oo baryahanba hagardaama la daba taagan jamhuuriyadda Somaliland iyagoo dhowr jeer ku soo qaaday dagaalada andaansi oo ka dhacay deegaanka Tukaraq kaasi oo xuduudka Somaliland gudihiisa ku jira in ka badan 75 kilomitir. waxay ku andacoonaysaa dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay jamhuuriyadda Somaliland ku soo xadgudubtay ama ay daandaansi ku wado maamulka Garowe balse madaxweyne Muuse isagoo arintaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in jamhuuriyadda Somaliland xuduudkeedii uu ilaa hadda ka maqan yahay in dhul ku siman 75 kilomitir oo dawladda midnimada xigeysay ay dubtay sidee Soomaali dib loogu sii karaa caqligu wuxuu nasiinayaa in labadii dal ee midoobay hadday tiro ku heshiin waayeen colaad iyo wuxuu ku qaadeen in midowga gaarkiisa halkii uu soo xiriir ku wado uu dib qalbigiisa u dhiso oo noqdaan laba dal oo xoolo oo walaalo ixtiraamaya oo talada iyo gurigiisa midowga lama maamulo midka kale oo muxtarka uu ku tago Soomaali sida caalamkaba ah
waxay ku wanaagsan tahay inay iskaashato oo haddana wax isu darsanaysan iyadoo oo simanta ahaa ay iskula timaado caqliga ma geli karayso matashaga si waan kuu talinaya 30 sano dagaalada ku jiray 8 sannadood dambe oo colaadda u haysaano nabad idinka doorina iyo waxqabsiga ku jiray maanta dagaalka tagbarad wuxuu ka socdaa Somaliland gudaheeda 75 kilomitir baa ka harsan xadkii Somaliland iyo Soomaaliya ay ahaayeen miyaan dib yaraan ku dhibay calanko miyaan dib yaraan ku dhibay calanko markale dhalanteed ku dhiibi karaa 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 dhulkeena bulshooyinaan dhisannaa ninkay dhibayse cilada ka dhurma ninkay dhibayse cilada ka dhurma midnimadii maabtuu ku sii dhaganye dhagaha ugu rida inaana dhacayn dhagaha ugu rida ugu rida ugu rida dhagaha ugu rida inaana dhacay dhagaha ugu rida inaana dhacayn dhagaha ugu rida ugu rida ugu rida dhagaha ugu rida inaana dhacayn dhulkeena bulshooyinaan dhisannaa ninkay dhibayse cilada ka dhurma ninkay dhibayse cilada ka dhurma midnimadii maabtuu ku sii dhaganye dhagaha ugu rida inaana dhacayn waxaa kale oo baaqu diray dadka isgarabsanaya ee maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale madaxweynaha federaalka Soomaaliya xukuumaddiisu tahay xamar isagoo u sheegay in ay haddii ay ka waantoobi waayaan dhibaatooyinkaasi ay la daba taageen jamhuuriyadda Somaliland aanay ahayn kuwo isdhiganaya shacab iyo ciidanba iyagoo oo barbar istaagaya ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugan jiidda hore ee jamhuuriyadda Somaliland barnaamijkani gaarka oo aynu ku eegaynay maraaxilkii kala duwanaa ee Somaliland soo martay tani wixii ka dambeeyay 1960kii waxay la socodsiinayaan Yoonis Cabdiraxmaan barnaamijkan waxay kala qayb qaatay saaxiibkii Cadnaan Maxamed Adwa Cadceed tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo dhisanahay maantoon dhisanahay madheeliiside dhankayga haddaan dhaqaala helana dhibkuma oo ma dhaawacmaside samaad ka dhaxliye riyada iska dhaa maantoon dhisanahay maantoon dhisanahay maantoon dhisanahay maantoon dhisanahay maantoon dhisanahay madheeliiside dhankayga haddaan dhaqaala helana dhibkuma oo ma dhaawacmaside samaad ka dhaxliye riyada iska dhaa rumbaan ku dhaqmaa taariikh dhigano rumbaan ku dhaqmaa taariikh dhigano